madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Somaliland wasaaradda xubnaha wasiirada xisbiyada salaadiinta madax dhaqameedka kale marti sharafta kale ka soo qayb gashay halkan joogta dhamaantiin waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh runtii badin maayo aniga lafteedu safar baan ahayo iminku maan soo galay waxa hadalka inta kooban nuxur ku jiro muhiim ah sharaf weyn bay maanta inoo tahay inaynu halkan ku daahfurro inay shirkadda Air Al-Arabiya ka bilowdo Soomaaliland markii ugu horeysay duulimaadyadii waa u mahad celinayna madaxda ka socota shirkadda halkan inoogu timi runtii maaha markii koowaad ay yimaadaan tiraba dhowr jeer bay yimaadeen intaaba dadaal la waday bay ahayd inay qiimeeyaan oo ku qancaan adeega aynu ku hayno madaarka ama wasaarad ahaan adeega ay u hayso dalka taas ayaa suurto gelisay hore way u yimaadeen xilli hore waqtigii Maxamuud Xaashi oo ahaa wasiirka waqtigaas markii runwayga la dhisay bay ahayd adeegeenu waxba ka dhindhinaa kama aanan harin xiriirka hore inaanu daba gallo oo aanu joogtayno dabcan waxaan aad ugu mahad celinayaa nimanka Somaliland riska ah ee iyaguna suurto geliyay fududeeyay ee wakiilka shirkadda inay qayb la xaale ka qaataan haddana oranahaynba waa qaybta ugu muhiimsan bay ka qaateen aad iyo aad baan Cabdisalaam yarka kale halkan maraya aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa dadaalka aynu wadnaa qayb un buu ka yahay dadaal ka ballaaran oo doonayno ku suurto galino in shirkado badan yimaadaan annagoo haddana eegayna isu dheelitirka baasanjarkaynu haysano iyo tirada diyaaradaha aynu keenayno capacity-ga madaaradeenna way haddaynu diyaaradaha badino oo tirada dadka dhoofaya soo degaya yaraadaan waxay keenaysaa in competition-ka iyo tartanku kor u kaco taasina waxay keenaysaa inay caqabad ku noqoto shirkadaha laftooda gaar ahaan kuwa maxalliga ah marka annagoo taa isu dheelitirayna haddana ka tagi mayno inaynu diyaaradaha aynu soo jiidano sababtuna waxa weeye diyaarad kasta oo flag carrier oo calan dal kale sidata waxay calaamad u tahay inay aqoonsi dadban oo qarankeenu helo ay suurto geliso hadday tahay Djibouti hadday tahay Fly Dubai hadday tahay Ethiopian Airlines hadday tahay Al-Arabiya oo imika inagu soo biiray dhamaantood waxaana udub dhaxaad u ah adeega aynu bixinayno iyo shaqaalaha badqabka dhinaca safety-ga iyo xagga amniga madaarkeena oo qaybo badan imika intii aan joogay wasaaradda aynu ku kordhinay iyo waliba qaybo socda oo ay kamid tahay terminal cusub inaan dhisno waan maqlay qolooyin le maxaan kula dhulkii madaarka qof la siiyo hudheel laga dhisaya madaarka dhulkiisa madaarka baale wasaaradda baale cid la siinayaana ma jirto laakiin waxa jiro xaqiiqa terminalka la dhisayo qolada Turkiga aan ku wadahay waa package hudheel baa ku jira la dhisayay hudheelka markii ay iyagu ay yiraahdeen waan ku darsanaynaa oo qorshaha waxa noogu jirta inaan terminal cusub casri dhisno around $30 milyan ku kacaya hudheello waa noogu jira $2 milyan ku kacaya design-kiisa noo keeneen waxa jireen nin Somaliland oo hore u soo codsaday marka waxa aanu anagu isu eegnay war haddii nin Somaliland oo maal gashan karaya inuu hudheelkii madaarka isagu uu dhiso haloo fudu oo uu transit-ka loo isticmaalo haloo fududeeyo halkii qof ajaanaba priority-ga la siin lahaa maalin walba investment aynu sameeyno haddaynu ka fuudhiyeelo ninka ajaanabka ninka muwaadinka guuldarrayada lafteedu weeye marka ma aha macnaheedu in dhulkii madaarka cid la siinayo mana aha in la bixinayo wax dadaalada la wado iyo maalgashiga ku talagalka ee ah tayeynta iyo joogtaynta iyo kor u qaadida adeega madaarka ay qayb ka tahay taana waxaan leeyahay war laga daayo waxa warka sida qaloocan la siyaasadeynaya sida qaloocan loo dhigayo waxa ka qurux badan waxa weeye xukuumadda maanta jirta wixii dadaal ay samayso xukuumadda dambe ka dambaysa faa'iido u tahay halkay ku xiiqi lahayd wixii ay qabatay waxay maanta qabanayso wax badan oo dalka u baahan in laga qabtaa yaale taa hoos iyo tabaabulshaysato hadday tahay mid xisbiga ka imanaysa hadday tahay mid xisbiga mucaaradka ka imanaysa ha u diyaar garoobaan wixii dalka loo qabanaya qabyo badan baa inoo taalee waxa maanta annagu aanu qabanayno ha laga daayo gobtahayada maan leeytaana waa soo dhaweynaynaa runtii aadna waan idinku mahad celinayaa waxaan leeyahay waa tartan shirkaduhu hadday soo kordhaan laakiin qiimaha waxaan ku ilaalinaynaa mar kasta wax aan dhib u keenin diyaaradaha laftooda shacabkana faa'iido annagoo u furayna in la tartamo oo qiimaha laftiisa qiimo macquula ay tigidhadu noqdaan oo adeeg hufan la helo oo dalkeena u soo jiida maalgashi oo dadka ajaanibka imanaya suurto galiyay inay maalin walba helaan flight joogto hal ay ku daali lahayn inay sugaan
dadweynahana waxaan leeyahay ka faa'iidaystaan hana soo dhaweeyaan wixii maalgashiga dalka laga sameynayana waa shaqo abuuris waa horumar waxaaba laga yaabaa dee imika anaga 5 bilood baa waxa noo hadhay waa 5 bilood ama 6 bilood baa laga doorasho la gelaya waxaan oo la soo dhaweeyo cid ay faa'iido noqon ilaahay baa oge dalkay faa'iido u tahay iyo horumarkiisa wixii maalgashiga wuxuu doonaha noqday wixii dan u ah dalkeen dib u keenahay la soo dhaweeyo halagana daayo wixii dhibaya ama dhaleecaynta iyo bayrta iyo nabarka loo yeelayo dhamaantii waan isku salaamayaa waxaan ku soo dhaweynayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland inuu isla kelmadiisa halka ka yiraahdo